Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Keliyuhu waxay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna waxaanay qabtaan shaqo badan. Caafimaad qabka keliyuhuna waxay muhiim u tahay caafimaadka jidhkeenna. Haddaba waxaa jira dad siyaabo kala duwan uga cawda caafimaad darro ka haysata kelyaha. Cabashada ugu badan ee keliyuhuna waa dhagaxaanta ama quruuruxa ku samaysma kelyaha, kuwaasoo dad badani ay dhibaato ku qabaan. Haddaba haddii aad tahay qof ka cabanaya dhagxaantaas ama quruuruxa gala kelyaha, inta aanad dhakhtar tagin waxaad isticmaashaa sharaabkan hore loo tijaabiyey, kaasoo insha Allahu furi doona kelyaha kana saari doona dhagxaanta ama quruuruxa ku jira. Si aad sharaabka u diyaarsatana, ugu horreyn waxaad soo qaadaa biyo aad ka miirtay xabad liin dhanaana, kadibna waxaad ku sii dartaa koob aad ku shubtay biyo kulul. Waxaanad ku sii dartaa 2 malqacdood oo ah khalka ama sharaabka laga sameeyay tufaaxa. Kadibna saddexdaa shay oo aad isku dartay ayaad xoog isugu walaaqaysaa. Waxaanad cabbaysaa wax yar kadib markay qaboobaan oo kulaylkii uu ka bo'o. Waxaanad cabbaysaa 60 daqiiqaba mar ama 60 daqiiqo markaad joogtaba hal mar. Kadibna waxaad ka daba cabbaysaa biyo badan, biyo caadi ah intaad cabbi karto ee ugu badan. Waanad wadaysaa cabbitaankan ilaa inta aad ka xaqiiqsanayso inuu kaa tagay xanuunkii kelyuhu. Waxaa jira arrimo aynu inta badan samayno oo lagu sheegay inay khatar ku yihiin caafimaadka kelyaha. Isticmaalka badan ee milixda ayaa ah arrin khatar ku ah caafimaadka kelyaha. Dhinaca kalena, kor u kacitaanka dhiigkarka ayaa iyaduna ah arrin halis caafimaad ku ah kelyaha, iyadoo lagula taliyo dadka qaba dhiigkarku inay si joogto ah ula socdaan xaaladooda caafimaad ee dhiigkarka si aanu saameyn ugu yeelan kelyaha. Dhinaca kalena, sida lagu sheegay daraasad lagu sameeyay Jarmalka, in maalin walba aad cabto 2 koob oo ah sharaabka soodhaha leh ayaan iyaduna caafimaad ahaan u fiicnayn kelyaha. Dhinaca kalena, hurdo yaraanta ayaa iyaduna dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha waxaa ka mid ah caafimaad darro soo wajahda kelyaha. Cabbitaanka sigaarka iyo waxa la midka ah. Inagoo og in cabbitaanka sigaarka iyo waxa la midka ahi ay waxyeeleeyaan halbowlayaasha wadnaha, waxay haddana dhaawac xun u geystaan kelyaha, iyadoo la sheegay dadka ay kelyuhu fadhiistaan adduunka oo dhan in 51% ay yihiin dadka cabba sigaarka iyo waxa la midka ah. Ilaahay baana cudurka iyo caafimaadkaba haya.